السلام عليكم سودو هذا مركله كوني سودو هذا مقال كلا عصب مقال كان ما أنتوا حين كويك دونا ملاب كلا قصر خامة لقى صقرا دول كبور اللي ده كوي على دالك النيبال الله ما دي سوى بيداي تيني سوى ده بني بدو ملاب كنا يا ملاب نادر كاسو السنة كردن لقرط الله بويجو كلية إسقى سامين تبلي هاي ملاب كنا وياهي إن لقصر خامي كرو أما بقف كوتوس كرو حيوان شرين ملاب كنا يا هذا بوح السماية شيني ده ملاب كسمة سئ وجوين أدون كهردن shinnidaas oo laga helo buuraha himilaayo korkooda sababta malabkan lagu sarqaamayna waxa lagu sheegay maadaama shinnidaasi ay isticmaasho markay sameynayso malabkan geeda sun ah oo buuraha ka baxa maadooyinkan qofka waxay ku sababi karaan in maskaxdiisu ay tagto oo uu sarqaami karo haddaba waxyaabo qofku uu dareemayo marka uu malabkan cuno waxa kamid ah inaad maqlayso codad kale oo aan jirin sidoo kale dadka kugu hareeraysan ay kula noqonayaan dad nooc kale ah si haddaba malabkan loo soo guro ragga soo gurtaa waxa ay fantaan jararka ka laadlaada buuraha oo 100 mitir gaadhaya iyagoo kaliya adeegsanaya xadhigan idin muuqda ee lagu koro sidoo kalena raggani waxay adeegsadaan gacmahooda iyo lugahooda si ay u soo guraan malabkan iyagoona u dhowr adeegaya xanuunka ka soo gaadhaya shinnidu marka ay qaniinto haddaba taariikhan marka laga hadlayo dadka deegaanadan degani waxay malabkan u isticmaalaan si ay ugu daweeyaan xanuuno fara badan oo kala duwan laakiin dhanka kale sidaas ay tahay waxa uu fiirsasho mudan malabkan in dawahaana loo isticmaalayo sidoo kale malabkan laftarkiisuna uu yahay malab sumaysan oo qofku uu ku sarqaami karo haddii uu qofku xaddi badan oo malabkan ka mid ah adeegsadana waxa uu ku sababi karaaba inuu paralysis noqdo ama wadna garaacagu inuu hoos u dhaco sidoo kalena heer wuxuu gaadhayaaba uu qofku ku dhiman karo haddaba deegaanka uu ninkani maanta tagayo waxa kaliya kaga hadhay hal family kuwaasoo iyagu weli gurta malabkan sida aynu ka arki karno farshaxanka ka muuqda godkan kaasoo jiray waqti lagu qiyaaso 7500 oo sano qaababka ay dadkani malabkan soo gurtaan isma bedesho oo weli waxay adeegsadaan qaabkii hore ee qadiimiga ahaa qaabkaasoo la odhan karo waa qaab aad u cajiiba oo aan adduunka meel kale laga adeegsan haddaba kadib 36 saacadood oo ninkan uu ku soo socday diyaarad iyo gaadhi isku jira waxa uu ugu dambeyn soo gaadhay tuuladan yar oo lagu magacaabo Tansi taasoo ay degan yihiin qabiil lagu magacaabo Gurun markuu meesha sidaas soo gaadhana ninkan waxa uu la kulmayaa qabiilkan iyo dadkooga kadib ninkan waa la kaxaynaya waxaan uu tagayaa dadkii malabka soo guranayay kadib waxa meesha ugu tagayaa rag sii fadhiya ragana waxa ku jira 3 nin oo is dhalay wiil aabihii iyo awowgii oo saddexdooduba ay malabkan soo gurtaan odayga ugu weyn gacantiisa waxa laga arkayaa dhaawacyo ka soo gaadhay sanadadii uu soo guranayay malabkan kadib ninkan waxa uu wareysanayaa wiilka aabihii oo isagu sanad walba soo gurta malabkan intaa kadib waxay diyaarsanayaan si ay u soo gurtaan malabkan iyagoona qalabkooda diyaarsanaya qaar kalena ay go'aaminayaan buurta ay ka soo guranayaan malabka waxayna diyaarsanayaan bahasha ay ku kori lahayn ama jaranjaradii ay iyagu gacantooda ku samaysteen kadib jaranjarada meel ayaa laga soo laadlaadinayaa si ay si fiican u gaadho meesha malabka laga soo guranayo intaa kadib waxay diyaariyeen caleemo fara badan oo ay isku ururiyeen kuwaasoo loogu talagalay inay difaac ku noqoto markaad malabka soo guranayso caleemahan oo qiiq laga shidayo kuwaasoo ka caawinaya in shinnidu aanay kugu kicin oo aanay meesha ka duulin amaba aanay adiga kugu degin intaa kadib raggii soo gurayay malabku waxay xidhanayaan wixii shinnida ka difaacayay kadibna hoos ayay ugu daadegayaan jaranjaradan laadlaaday samaysteen dherarkeedu wuxuu gaadhayaa ilaa 80 mitir laakiin jarka ay ka laadlaadaan uu ka dheeryahay intaa badankana raggani waxay ka soo bilaabaan xagga sare ee buurta laalaadkeeda si ay hoos ugu soo daadegaan qaar kalena waxay ka caawiyaan halka hoose sidaa daraaddeed ninkan waxaa laga dhigayaa dadka xagga hoose ka caawinaya iyadoo loo xidhay qalabkii ka difaacayay shinnida malabkan haddaba waxa soo saara shinnida ugu weyn adduunka oo xajmigeedu ka wan yahay shinniyaha caadiga ah ee aynu naqaano 2 jeer shinnidanna waxay leedahay miciyaadu dhaadheer kuwaas xataa maryaha ka dhex baxaya iyagoona raggan uu sheegaya markay soo gurtaan malabkan inay dhadhamin doonaan oo qofka uu ka sabayo inuu sakhraamo ama miisaanku ka lumo raggan ayaana u sheegaya iyaga laftarkooda markay cabaan in miisaanku ka lumo haddaba malabkan ay samaysatay shinnidu qayb walba waxaa ku dul taagan tahaadh madow taasoo ah shinni fara badan oo qiyaastooda gaadhayso ilaa 100,000 oo shinniya ragganna markay qiiqii sidaa u shideen shinnidina ay dareentay waxay samaysay dhaqdhaqaaq kala duwan taasoo ninkan uu sheegay inay tahay difaac ay qofka ku dareensiinaysa in khatar ay ku soo wajahantay iyadoo shinnidan markiiba soo weerartay daroontii ninkan iyagoo moodaya xayawaan kale oo soo weeraray ninka soo guraya haddaba malabkani waxa uu iska soo laalaadiyey jaranjarada ay samaysteen 2 ulood oo dhaadheer ayuu sitaa mid wuxuu ku hayaa salladii uu malabka ku soo gurayay ta kalena uu ku jarayaa shinnidana wuxuu iska ilaalaya inuu dhaqdhaqaaq sameeyo si ayna ugu degin iyaduna looga baahan yahay inuu taxadiro si degdegan u soo dhameeyo qaar ka mid ah raggiina waxa weydiinaya ilaa imse sano ayaad malabkan guranayseen waxaan u sheegayaa ilaa 20 sano in ay gaadhiso waqtiga ay ku jireen nin kale oo iyaga ka mid ah waxa weydiinaya bal ka waran haddii malqacad kaliya malabkan aan cuno waxaan u sheegayaa inuu soo xi karo sidoo kalena uu matagayo ama sidoo kale uu dhulkaba ku dhici karo kadib markuu roobka soo daana waxay ku noqonayaan gurigii maadaama ninkan aanu rabin inuu qalabkiisa ka qoyo raggii malabka soo guranayeen magaalada ayay ku wada kulmi doonaan kadib markay gurigii tagaan raggii ayaa imanaya iyagoona sheegay inay maanta soo gurteen ilaa 40 litir oo malabkiya
roobka daraadiina maadaama meesha ay ka laalaadeen ay siibata iskaga yimaadeen qaar iyaga ka midana shinida ayaaba qaniintay waxayna sheegayaan haddii ay cimiladu wanaagsanaato inay berri doola ku noqon doonaan kadib waxay waraysanayaan nin ka mida raggii meesha joogay waxaanay u sheegayaan balka warna aabbaha sheekada ku dhacday nooga sheekee waxaanu ka odhanayaa malabkan iyo beed ayuu isku darsaday kadibna ateenkaaba ka lumay 3 cisho ayuu isku hurday buuhi subaxii markuu soo toosayna waxaan aragnay isagoo lugaha iyo gacmahaba ku socda markii dambe caadi yara noqday inuu cararayba buuhi kadib ninkan wuxuu sheegayaa inuu isku dayay laftarkiisu inuu malabkan cuno si uu bal u tijaabiyo sida lagu noqonayo laakiin wuxuu sheegayaa maadaama habeen tahay haddii ay wax ku dhacaan xaaladiisa caafimaad ay xumaatana inaan habeenka lala carir karin ee ilaa birta hore uu sugayo berrina uu tijaabin doono malabka kadib subax ayaa lasoo toosayaa laakiin markan intii hore way ka badnaanayaan maadaama meesha la tegay ay tahay meel malab fara badan laga soo guranayo jaranjaradoodii oo labalaaban ayayna qaadanayaan 2 qof sidaan dhulalka ay sii marayaan waa dhulal halkii hore ka adag oo jeexjeexya ay marayaan ama dhul sii siibanaya kadib waxay marayaan biriish leecleecaya oo dirq lagu hayaba 2 qofna inay isku dhagsanaadaan markay marayaan weeye sababtoo ah uu leecleecaya malabkan marka la eegayo soo gurashadiisa waxaaba ka adag meesha loo marayo iyo xataa jararka la korayo jarka imika idin muuqdana qofka ka soo dhacay oo dhamaatay intaa kadib raggi waxay soo laadlaadsadeen bahashoodii iyagoona bilaabay inay malabkii soo gurtaan intaa kadib ninkan waxa uu sheegayaa in shinnida malabkan samaysa ay waqti dheer ku qaateen in malabkan samayso iyadoo malabkan uu ka kooban yahay suntii flowerka laga soo qaadayay ee shinnidu ay soo isticmaalaysay malabkan waxyaabo fara badan lagu daweeyo ayaa haddana sidaasay tahay 200 gram waxa uu suuqa ka joogaa lacag gaadhisa $400 laakiin ay nasiib darro tahay in raggan ay naftooda dhan halis sidaa ugu gelinayaan maadaama calaa qof ay helayaan $50 oo keliya intaa kadib waxaa loo soo laalaadinayaa silid xagga sare laga soo daayay oo malabkii lagu soo guray taasoo la kala shaandhaynayo ninkan halkaas ayuu ku tijaabinayaa malabkiisii ugu horreeyey markaabana wuxuu sheegayaa in malabkani macaan iyo qadhaadhba isugu jiro oo laga dhex dareemayo sunti garayaan toxic la odhanayay ee flowerka shinnidu ay ka soo qaadisay malabka ka samaynayso ninkiina wuxuu sheegayaa in markiiba wax dareemay sidaa daraaddeed raggii badankooda waxay u sheegayaan maadaama iyagu hore waxaan soo arkeen inuu buurta hore uga baxo maadaama uu sooxi karo hadhowna aanay sidaa ku qaadqaadi karin ee imika intuu caadiga yahay xagga sare iska tago markiibana xaggii sare ayuu iska korayaa oo buurta ayuu ka baxayaa waxaana laga yaabaa marka ay suntani ninkan kusoo bahdeen 12 saacadood aanu kicin suntanna jirhkiisa waxay ku geli kartaa ilaa 45 daqiiqo kadibna waxoogaa ayay buurtii soo korayaan maadaama ninkan wax yar malabkan cunay oo aanu badnaynba markan cunto ayaa la siinayaa chicken baa la siinayaa taasoo hoos u dhigi karta inuu ku faafo suntani jirhkiisa haddaba malabkan ayaa loo isticmaali jiray marka taariikhaan la eegayo in ciidamadu isku adeegsadaan oo hub ahaan loo isticmaalo romanisku markii ay soo weerareen bay yidhahdeen dhulkan boqortooyinkii dhulkan deganaa ciidamadoodu waxay fahansanayeen malabkan sidaa daraaddeed waxay u sii dhigeen waddooyinka ciidamadii romaniska kuwaasoo malab caadiya mooday oo isticmaalay sidaana dhammaantood ku wada sarraamay oo xataa qaar badanoo ka midna ay ku dhinteen ninkanna mar labaad ayaabuu malabkii cunayaa isagoo sheegay inuu markan xoogaa ka isticmaalayo isagoo rabo bal inuu dareemo sida la dareemo kadib waxay kusoo noqonayaan meesha ay deganaayeen ninkana weli wuxuu raadinayaa bal siduu ku noqdo isagoo qof walba si ka duwan sida kale uu ku dareemo oo dadku aan isku wada si ku noqon intaa kadib waxa laga soo wareegayaa 2 saacadood markii uu malabkan cunay kadib ninkanna wuu dhacdhacayaaba kadib waxa uu guriga ugu gelayaa nin kale oo isaguna isticmaalay malabkan oo isagu jiibsadayba maadaama xaalad xun dareemayo malabkan ayaana ku sababay inuu qandhoodo oo waxbuu huwanayaaba intaa kadib ninkan waxa uu weydiinayaa sida uu dareemayo waxaana uu sheegayaa in faraha iyo gacmuhuba ay qabowaadeen ninkan kale weli isaga waxba muu noqon ee hore malabka ninkan intiisa ka badan u cabay laakiin isaga laftarkiisa waa lagu soo socdaa wuxuu sheegayaa inuu haraad dareemayo odaygan jiifa ayaana sheegay marka hore inuu isaguba sidaasoo kale haraadka u dareemay markuu biyihii cabeyna uu soo matagay 10 jeer in ka badanna uu matagay ilaa imika ayuu sheegayaa ninkani wax yar kadibna ninkii ayaaba bilaabay inuu dareemo astaamihii ninka kale oo kale isagana temperaturkii jirhkiisa ayaa hoos u dhacay isagoona isku duubay busto weyn kaasoo qandhada iskaga ilaalinayo kadib ninkii kale la socday ayaa shaax u keenaya shaaxuna shaax bayl u ahaa laakiin ninkan uu taabanaya shaaxa kuleylkiisana ma dareemay maadaama temperatureka jirhkiisu aad hoos ku dhacay tanna waxaa sababaysa maadaama suntii ku jirta malabku ay jirhka khalkhalinayso unugyada qofkan ay ka hor istaagiso inay wada xidhiidhaan waana sababta fariisu ilaa imka kuleylka waxba uga qaadi laayay oo uu dareemi laayahay ninkan jirhkiisuna gebi ahaanba wuxuu bilaabayaa inay dareenku ka tago oo marka laga tago 2 farood jirhka intiisa kale ayuu ku baahayaa dareen la-aantaasi intaa kadib ninkii wuu yaro diirayaa waxaanu iska qaadayaa bustii saarnaa waxaanu sheegayaa in markii ugu horreysay uu dareemay kulayl fara badan maryaha inuu iska saarana uu doonay laakiin haddana wax yar kadib u qabo uu dareemay waxayna ahayd sababtii uu usoo howaday bustaha islaanta laftarkeed waxay sheegaysaa inay isticmaashay malabkan malqacad ka mid a oo in iyo qosol la isku dartay mar wakhtiga ka mid ah waxayna odhanaysaa marka dambe islaanta waxaan dareemayaaba inaan duulayo kale isagoo ninkan ku qosilaya da'deeda iyo waxaas weydiinayaa wax yar kadibna ninkan waxauu jirhkiisa ka dareemayaa xanuun fara badan isagoo xataa indhaha kala qaadi kar waayaya waxaanu sheegayaa in wakhtigu la dheeraadayba xanuunka dartii marka dambena wuxuu bilaabayaaba inuu matago
haddaba suntan Gryana toxic loo yaqaano waxay qofka ku sababi kartaa inuu wadno istaago sidaana uu qofku ku dhiman karo haddaba qofku marka uu rabo inuu malabkan si fiican oo caafimaad u adeegsado waa inuu raacaa sida uu dhakhtarkiisu u sheego maadaama aynu sheegnay in malabkan lagu daweeyo xanuunada qaar oo dhakhaatiirtu ay adeegsadaan haddaba ugu dambeyntiina si wanaag ninkan wax aad kuma noqon malabkii suntiina jirkiisa waxay kaga baxdaa 24 saacadood maalintii xigtayna waxa uu ahaa qof caadi ah oo firfircoon soconaya inkastoo habeenkii uu dareemayay wareer oo sidoo kale uu matagay gabagabada muuqaalka waxa uu sheegayaa soo gurashada malabkan inayna fududayn ayna u baahan tahay waqti iyo xirfad maadaama raggani waqti badan ay ku soo jireen sida daraadeed ay ula qabsadeen khataro fara badan ay ku gadaamantii marka la soo guranayo malabkan qabiilada halkan degan haddaba waa qabiilo dhaqan iyo caadooyin soo jireen leh gurashada malabkana waqti dheer ay soo wadeen oo jiilba jiil ayuu ka dhaxlayay muuqaalkuna halkaas ayuu ka eegyahay haddaba haddii aad ka heshay ama wax macluumaad unaad ka faa'iiday fadlan ugu soo biiro subscribe-ta noo saar sidoo kale fideogana like ta saara aad baad mahadsantiin